qaar ka mid ah heesaha abwaan cabdiqani xaaji Aktoobar ee xambaarsan dayrada qaawan ayaa qanciyay qaybo ka mid ah haweenka cadhaysan ee niyad-dhiska ugu jira Snapchat-ka. dhaawacaan dhaymada ku raysan ayaa helay muddooyinkii dambe dawooyin sahlan kadib markuu doctoorku u qoray badiba dhaawacii dhuljiifka ahaa murtida abwaan cabdilaahi xasan ganay, taasi oo dhayda meelahan dhakhtar gaadhin. haddii ay kusoo weerartay baruurtu ama se xaydho, raac talada doctoorka isu dheelitirka lafaha iyo baruurta kuna ciyaar heesta abwaan faarax murtile ee jamjam istaag adigoo raacaya qaab socodka jamjam istaag. haddii aad caadaysatay cadho badan ama cabasho badan ood berigii hore nabcayd si aad naftaada u badbaadiso guur amase guurso, amabase ma u malaynaysaaba inuu ku asiibay mid kamid a cudurada ka dilaaca qurbaha? hadday jawaabtaadu tahay haa, waxaan ku hayaa doctoor aqoon sare u leh cilmi nafsiga iyo xalinta khilaafka soo kala dhexgala qofka iyo naftiisa. calaamadaha lagu garto xanuunkaasina waxaa kamid a anaa og, anigaa fahansan, waan la socda, waan ka shisheeya, dadkan oo dhan baan ka horeeya. haddaad isku aragtay mid kamid a calaamadahaasi fadlan lasoo xidhiir doctor mustafa bir xanuuje oo ah doctoorka cilmi nafsiga iyo cabashada naftaada. haddii se aad tahay hoobal hibana u leluuqda ay hawli kaa haysato hirgeliwaaga heesahaaga oo heestii hadda soo baxday ee fiyuga kaga horeysa taadii kal hore, waxaa hubaala inay ku heleen abwaanare qarqoora laxamiista qalooca iyo muusishan qubqaca. haddiise aad tahay siyaasi oo siyaasadaadu hagaastay mase hana qaadi weyday, waxaa go-ay bridjkii isku xidhaya hankaaga iyo himilada shacabka. dhaqsa ugu hagaag goobta fadhi ku-dirirka ee kuugu dhow kuna qoro buugaaga xusuus qorka qaybaha ka anfaca mawjadaha hadalkeen loo miidaan dayeynina madashaasi ka socda. haddiise aad tahay ganacsade isaga kala goosha China iyo Dubai, keenana qaar kamida bariiska, baastada, baacweynayaasha, biibiilayaasha iyo buraashadaha caruurta oo binina ka faa'iideen noqoshada bulshada u keenay ka dhexbaadh inay kugu soo baydheen baysteymo agoomeed ama hanti dhulood boobtay. ugu dambeynna waxaa la laalay xeerarkii ay ku shaqeynaysay maxkamadda naafada caashiqa ee adduunka, waxaana dib looga furay dalka Sweden halkaasi oo uu ku sugan yahay abwaan cabdirasaaq xaamud caydi jaylaani oo ahaa aasaasihii